والدي عيد كستبله برنامج كان سان الله شيء إبريها لون يبشر لهم الإعلامين هي وحفلة أرض الله قبل هيو مدرسة عمر فاروق كم تهاي والمدير كذي علماء يوحنا يفضيان أنت أنا وحكي لك ذا قليل وحنقول بالله إن آيات قرآنه أو ينو آخرنا هيو محمد عبد الكافي فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ما شاء الله تبارك الله. إلهي بمهندس كله سبحانه وتعالى سوى دكسي لجينين ويرو قعنت الله يعني ما أنا مجرد ما أنت نوكها قرآن كي آخرنا هي وإلهي فضل يوهي ثم معلنك يوالتي إسكا شريبها هي أنا ما هذا أسكله هذا أنا وحكوس دوين هي أنت نوحك لجذا جلين مديرك مدرسة إنه وحير نوقف هيو دفعوين كي كبحي مدرسة يقاب كي كبلا وتي سيدا ينتهي إلى هالك هير كي ما أنت مريسو سوى كل إيران إن شاء الله تعالى على ودق يوم 6 دقيقة. تفضل. ومع هذا لو شيخ هذا يحيى أو تقنان. وعيب ضم هذا يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي أيام هذا إسكاله ما هذا كوباد إلهي بإسكاله. الحمد لله إلهي إسلام لمدينة السيء. الحمد لله إلهي إسلام لمدينة السيء. الحمد لله إلهي بكون شريكم النان ملايين با إلهي بكون مهاتسن إن السيء إسلام لمده حوق لغو مهلا حولنا لغو مهلا ووحو إلهي بحيو وأنا وحا أقال السن وحو إلهي بحيو sababtoo ah waxa weeyaan ilaahay baan garanaynaa adduunkanba wixii loo keenay ee loo abuuray koonkanaad arkaysidba waxa weeye in ilaahay la caabudo wey koonkanba wixii loo abuurayba sidaa weeyaan ilaahay baa marka kumanaan malaayiina iskale mahad haddana ruuxuu doonuu siiyaa islaamnimada ruuxuu doonana ma siiyo ilaahay baa iskale hidaayada inagu gacanta kuma haysano allihii ina siiyey ee ummadda inaga doortay ayaa kumanaan malaayiina iskale intaa kadib waxaa mahad iskale waalidiinta macallimiinta martida sharafta leh ay noo timid
waqtigooda inoo soo hortay ayaa mahad iskale, iyo ardaydaba mahad bay leeyihiin iyaguna. aada iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin xafladan quruxda badan. maasha allah, nabadgelyadan aynu haysano, alxamdu lilah, ilaahay waa mahad iskale. laba kelmadood ayaan odhanayaa sababta waqtiga yar oo aada iyo aada u gaaban. madrasada waxaa la furay, waxay ahayd madrasada xilliga la furay 2002 alifkii weeyaan, 2012 baa la furay oo halkan laga furay. masaajkan aynu gadanay oo halkan aynu la wareegnay, buildingkan quruxda badan ilaahayna siiyey. intaas kadib madrasadu way soo socotay, intaasoo dafca ka baxday. tani waa tii tobnaad, qeybtii tobnaad wey qeybtan. 9 horaa ka horreeyey. ilmihii ka baxay waxay joogaan magaalada, qaar baa macalimiina, qaar baa waxay joogaan Saint Paul, qaar baa macalimiinka Minneapolis xagga inooga guuray, qaar baa St. Clair macalimiinka oo joogta oo dugsigeenan ka baxay. ilaahay wuu inoo barakeeyey, mid barakeysan allah inooga dhigo, intan dambana allah inoo barakeeyo. macalimiintana ilaahay ha barakeeyo, qur-aankooda iyo diintoodana allah inagu anfaco. midhahaasina waa midhihii macalimiinta iyo waalidiinta. aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan leenahay sii wada oo dadaala. dafcadan marka waa tii tobnaad. 2 kelmaad marka odhanayaa, qeyb waalidiintaan leeyahay, qeybna waa macalimiinta. waalidiinta waxaan leeyahay, ilmaheenu waxaynu joognaa horta dhul ay ku badan yihiin dadaan inala diinahayn ayaa ku badan, aynu dhex joognaa. maadaama inaan joogin dhulka ilaahay baa leh, laakiin dhulka islaamku deganaa ma joogno. dhul uu u badan yahay dadaan inala diinahayn baynu joognaa. waa inaynu aada u feejignaano, aada wax badan ula soconno. waad aragtay maadiga adduunka 2 waxun baa la dhigtaa, maadi iyo diini. waad aragteen maadigii waxaasoo waxay haystaan wax walba. waad aragtay iskuulaadka, waad aragtay waxay leeyihin meeshii lagu dabaalanayey, meeshii jimicsiga lagu sameynayey, booliiskii oo dhex jooga, qoladii caafimaadka oo dhex joogta. waad aragtay inta iskuul ee hareerahana ku taalla magaaladeena keliya yaa tiradaa ka badan, laakiin meesha diinta lagu bartaa waa halkan keliya ee Wilmar ku taalla. 12 iskuul baa ku taalla magaaladeena, haddayna kaba badnayn mooji tiradooda warmahayo. meeshaad kasoo wareegto iskuul baa ku yaalla, laakiin meesha diintu waa halkan un keliya, waa masaajidkeennan un. meesha marka inaynu ilaashano, ka warqabno, ogaano weeyaan. macalimiinta la ogaado, laga warqabo. soomaalia maadigu adduun iyo aakhiro wax badan ugu anfici maayo. shaqo un baa lagu raadsadaa. waad ku soo xiiqday, intaasoo sanaad kusoo jirtay, laakiin waxaa laga yaabaa shaqo adduunun inaad ku raadsato, oo laga yaabo ama inaad hesho ama inaad weydo. laakiin diintu aakhiriya adduunba way kugu anfici. haddaad akhrisato qalbigay kuu dejin. aladiina aamanuu watatma-inu quluubukum bidikri illah, alaa bidikri illahi. soo ma aragti, qalbigay kuu dejinaysaa. kii xanuunsanaa baynu ku akrinaynaa. ma ingiriis baa kii xanuunsanaa ma maadi baa lagu akriyaa? ingiriis waxaynu ku akrinaynaa qur-aan, markaasaa ilaahay inoo bogsiinaya. qalbigaynu waynu akrisanaynaa, markaasaa qalbigu inoo degaya. soo ma aragti, ilmaheenima akhlaaqdu ugu hagaagaysaa, akhlaaqda inoo hagaagaysa. salaad iyo soon, soo ma aragti, salaadii bay baranayaan, tarbiyadii bay baranayaan, akhlaaqdii bay ku baranayaan. soo ma aragti,
marka waa inaan wax badan ka warqabno ogaano adduunkii uu kugu anfacay aakhirana uu kugu anfacaya nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam maalinka qiyaame ilmahan yaryarka hadda qur-aanka baraysaan taaj waalidka waxaa loo xidhayaa taaj dahaba loo xidhay taaj dahaba maalinta qiyaame lagu xidhaya soo ma aragtid aakhiruu kuu raacaya wuu ku anfacaya wuu kuu shafeecaya laakiin maadigii halkaad kaga tagtay maadigii adduun baad kaga tagtay isagoo hal shaqo un wax laga yaabo inaad u baratay shaqo keliya kani adduun iyo aakhira marka uu ku anfacay soo ma aragtid oo wax ilaahay raalli ka yahay jannada ilaahay baa lagu helaa marka waxaa aada iyo aada u fiican markaas waalidiinta iyo macallimiintu inay gacmaha is haystaan waalidiintu wax badan ogaadaan macallimiinta ay ka warqabaan waqtigibay u horeen waa meeshaa keliya meesha ilaahay lagu caabudaa waa meeshaa keliya meesha diin lagu dhigaa waa meeshaa keliya meeshii marka waa inaad ka warqabtaan oo ogaataan oo war waa sidee maxaa ka jira xaaladeedu waa sidee mucallimiin marka wax badan inay waalid ka warqabaan ayaan aada ugu boorin lahaa waktina wuu igu socdaa aada iyo aada arrintaas aan idinku boorin lahaa waxa weeyaan markii ilmihii wax la baro aada macallimiinta la shaqaysaan marka ilmaha qur-aanka loo dhigo waad aragtay 25% yaa waxaa laga yaabaa macallinku 25 buu baraya 75 buu haray 75 waxaa laga rabaa macallin ardayga iyo waalidka inay keenaan marka inaad ardaygii la shaqaysaan qur-aankiisa lasoo baro isagoo yaqaana uu yimaado aad bay uga caawinaysaa macallinkiina farxad bay u noqon ardaygiina farxad bay u noqon marka allah idin barakeeyo dhammaanteenna allah ina barakeeyo marka inaad ka warqabtaan macallimiintii inaad ogaataan macallinka waqtigu inoo huray shaqadii uu kasoo fadhiisto ilmuhu waqti geliyey in la ogaado wey khaasatan macallimiinta o dhan allah ha barakeeyo ilaahay ha barakeeyo galaaskan iyo macallinkiisana allah ha barakeeyo iyo waalidiintiisa iyo ardaydiisaba ilaahay ha barakeeyo wax barakaysan baa wax laga dheefaa soo ma ha camalka kii barakaysan ayaa kuu hagaaga laakiin camalkaagu hadduu fara badan yahay uusan faa'iido lahayn faa'iido male markaas marka waxa weeye waxaan odhan lahaa waalidiinta aada iyo aad baan ugu boorin lahaa arrimahaas macallimiintana hal baan odhan lahaa iyagana laftigooda inay sii dadaalaan sii laban laabaan ubaxaas maynaan heleen haddaynaan macallimiin haysanin marka aada iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa aad baad u mahadsantihiin sala allahu wasalam calaa maxamedin sal alay wasalama subxaana rabbika rabbi lcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin allah idin barakeeyo kulligiin ba dhammaantiin waana noo furayay un xafladana waa inoo furanta insha allah ما شاء الله جزاك الله خير تاريخ غير ونسي iyo wacdigaas iyo waanadaas macallimiintii waalidkii dhammaan isku sixnaada insha Allah runtii xafladan waa sidaa sheegnay waa xaflad aad u qiimo badan weeye oo ardada munaasab u aha ilaa 6 qodob iyo 7 qodob bayna ka kooban tahay arda quraanka dhameysay kuwa su'aalo diini isweydiinaya jawaab iyo su'aal kuwa maartay anashid qaadaya kuwa ku soo takhasusay farta qoritaankeeda iyo kuwa siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam isweydiinaya iyo kuwa 3 juz iyo akhrinaya hadii jaaniska noo wada helo insha Allah iyo ayadoo oo kaleeto oo kalimaad 3 culimaha ayna siinayaan kelimo ku saabsan sida awgeed waxaan aad u jeclahay intaan ardada quraanka dhameysay iyo kuwa quraanka akhrinaya aan u gudagelin inaan sheekh marti inoo aha oo inooga imaaday meel fog oo wax kale u imaanay inuu naga qayb galo farxadaas waalidkii macallimiintii ardada inuu wax ka siiyo noogu imaaday inaan siiyo insha Allah taala sheekh Suldaan Abu Talha waan siinaa insha Allah taala jazakallahu khayr
الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا ودين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كده ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى ومع السكنة فلقان إنه سكان كياني كلن كان قيمها بدن oo caruurtii walay naga beeray aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu xirayno hadafka iyo danta laga leeyahay barashada qur-aanka iyo barashada diinta waxaa weeyaan in allah subxaanahu wa tacaala aan ku xirnaano weeyaan duruusta la baranayo dugsiga la aadayo masaajidka la imaanayo hadafka laga leeyahay waa in uu noqdaa qofka muslimka ah qof ku xiran allihii abuurtay runtii waxaan haysanaa nicmo aada u weyn oo aysan haysanin ummadaha kale ee aan muslimiinta ahay waxaan maalin dhawey clip yar oo la tarjumay dhegaysanayay nin u istaagay in uu madaxweyne ka noqdo dalka faransiiska oo ay wada hadlayaan nin wariya dalka faransiiska seen ognahay muslimiinta aada bay ugu badan yihiin saameyn fara badanna waa ku yeesheen iyagoo oo runtii aada ooga baqaya kana cabsanaya in islaamka iyo muslimiintuba ay dominate gareeyaan diimaha kale oo idil iyo ummadaha kale oo meelaha jooga marka ninkii wuxuu leeyahay nimankan buu leeyahay ama dadkan buu leeyahay muslimiinta waa dad allihiina abuurtay ku xiran buu leeyahay allay ku xiran yihiin waa dad buu leeyahay aragtidooda iyo fikirkooda uusan ku koobnayn oo keli ah waxyaalaha yaryarka ahee dadka ka farxiya sida gaari qurux badan guri qurux badan oo la dego telefoon la samaysto hawshaas way ka weyn tahay buu leeyahay hamigooda iyo fikirkooda maanta qofka muslimka ah haddii lagu yiraahdo wixii adduunka yaalay oo nicmo ah oo nimco ah baa lagu siinayaa ee diinta ka baxma yeeli meesha laga yaabo ummadaha kaleeto waxa adduunka yaalla iska daayay hal magaalo niskeed waxa yaalla iyo wax ka yar baan ku siinayaa ee waxaad aaminsan tahay ka bax haddii la yidhaahdo ay hore uga sii dhaqaaqayaan marka wuxuu leeyahay dadkan isku mid ma lihi wuxuu leeyahay waa dad sharafta ilaaliya buu leeyahay sharafta iyo valuega qofka uu leeyahay shaksiga uu leeyahay bay ilaaliyaan wuxuu leeyahay gabdhahooda ay dhaleen uma ogolo inay gogol dhaaf iyo zine iyo fawaaxish inay galaan uma ogolo waalidkood ay ka dagaalamayaan buu leeyahay wuxuu leeyahay waalidkii iyo ilmihii waalidkii iyaga soo dhalay ee waaweynaa uma ogola inay meelaha honkeerada ee dadka waaweynka la geeyay ay geeyaan adigu ma aragtay reer muslim ah oo hooyadii ama aabihii dhalay oo dub ah meel dadka waaweynka lagu xanaaneeyo ku tuuray oo uga soo tegay weligii ma aragtay masalada qashay may annagu wuxuu leeyahay waxaan geynaa waalidka annaga waxaan geynaa meeshaasa ku tuurnaa buu leeyahay xanaano ma ahe wuxuu leeyahay waa duuri lil amwaat meesha dadka dhindhinteen inay ku dhintaan loogu talagalay la geeyo waa lagu leeyahay xanaano moo qof la nacay unbaa meeshaa lagu tuura oo aan dan laga lahayn marka wuxuu leeyahay inaguna wixii sharaf ahaa ee uu qof sharaf ka dhigan lahaa oo idil waa iska xayuubani wey waa ka dhex baxnay halkaa marka walaalayaal waxaa ka muuqataa diintan iyo qur-aankan iyo sunnadan iyo islaamnimadan uu ilaahay inagu sharfay ee uu inagu qiimeeyey ummadaha kale way inagu xasdayaan ummadaha kale seed ku gaartaan bay leeyihiin in la ilaashado marka diintaas
إلا إلى شذا مساجد داس إلا إلى شذا دبسياشاس إلا إلى شذا إلمها قرآن كبرنا يوم وواجب مقدس أو إلى الله تعالى كريم كلمة مركب حرنا وينا كفروا ويلكي يرى قرآن كأجنبي أبو يرى دلس ما شاء الله تبارك الله لكن هو أغرينا القرآن أركيس إنه صوبري معلم نور إنه صوبري قرآن مخارجته يا حروفته صفات كود الله صحيح أبو أغني بالغيرك قرآن ماشي اللي هو استاجه هيد اللي هو استاجه أغني بالغيرك قرآن ونعكسن أو قروح بدل أو أحكامتي اللي إلهيه وأغني بالغيرك وهو أغني الصورة إيا النبي أنبياء إلهي كاملة أو إلهي ويدي سنة إنه الماء دريات وصيه في المناسبة ده إنه دريات أولاد إلهي سيه والنبي إلهي بو ورسالة وحليه وأنتو قوبي وحي قد أحلى وحي أنا هيا مدين مجرو إلهي الماء سيه إلهي سبحانه وتعالى يسألهم ويدي سنين الماء أكتبي كروان سيني كريم لكن وحلاوة لقلي مروا البوقفك مسلم كأه إن ونغضقف إلهي أكتسا دريما إنه يقف باهن أو الله باهن ذرية سلمك الله نسيي أو تربيين تهذا إلى لين تهذا نقم في عن كدويتان كذا ويا هدف كان سكوه إيماني هذو مرك الله إلهي سبحانه وتعالى ذرية iyo awlaadku siiyay oo kugu arsaaqay waxa waajibkaada ah inaad ilmahaas ilaaliso inaad cilmigooda waxbarashadooda fikirkooda aad ilaaliso inaad noqoto qof waalid soo jeeda inaad noqoto waalid soo jeeda inaad noqoto meesha iimaanay ku dhaxsoo dhaxgalay bi ikhtiyaarina inaga soo dooranay inaan meesha iimaano mar haddaan adiga soo dooratay oo wax qori kugu dawaayay oo meesha ka dhaqaaqay meesha aad ku dhahay oo joyskaada ku imaatay qof walba waalida ha ogaado ilmihiisa haddii uu tubta toosan ama wadada saxda uu ka leexdo amaam Allah in isaga la weydiinayo questionka koobaad inta aanan ilmahaas la weydiinin maxaa caasi oo u noqotay aabaha iyo hooyada hooyada iyo aabaha waxaa la weydiinayaa maxaad ilmahaada tarbiya saxa oo wanaagsan u sii weysay iyagaa la weydiinaya aabihii waxaa la weydiinayaa maxaad hooyo wanaagsan ugu doori weysay hooyada waxaa la weydiinaya maxaad aabbo wanaagsan ugu doori weysay waxaa la weydiinayaa maxaad ilmihii u ilaalin weydeen masaajidka maxaad ugu xiri weydeen qur'aan iyo diin maxaad u bari u weydeen saalixiin iyo ilmo wanaagsan maxaad ugu dhigi weyseen salaada iyo cibaadada maxaad ugu xiri weyseen الله أمرت معه أبري ويدين بالويدينيا وهذا لو نسبيدينيا سؤال ألق تهاي قف إنك أنا يوم يدرك جوابه محا بي ألاس إيه environment تجاس أي حمانتا إيه قال لماذا إيه كفرقة إيه فسقة يا له مع الأولى جيسي والويدين فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا قف والبوا إنه السؤال شاس أبديار سد الجواب تيسير وسكتوا هنا الجواب صح مركز كده لا شيء أديكوا وارد المشي مركز أسوء جلده مركز دلال كوب حسو مركز خرج كوب حسو مركز فكر كوب حسو مركز همي يمرقوا كوب حسو وعلى جاي على جوابته إلى سؤال إلى جواب سؤال شيء إلى جواب إن شاء الله جاي لكن مركز دنك لها ويسو مركز إهمال يسو مركز كتكتو مركز أدوم بس كفكرته مركز آخرين كفكري ويسو مركز الله كحري ويسو كدمنا ماشى أو كنتي كدمنا علمه ودقاقه سؤال شاس والدين إلا هو عقابه أي قرك أساري ما تقيامه أولو ويديو أو مركي إلا قفكي دلالي ويا أو دلال بحي ويا جواب صح مشي جيوه من الآن سنة كودي سنة الأمرين يسكي لي ما مشى ما أنتو قفل بفرصة هيستا فرصة داسنا وين المهن أن تلاقي أن كل ذا تربية الله إسلام لما قال إلى لنوه ما شاء أن أحفظ إنه كجرنه جال نجيه يتحدي يا الله
wax uu qofka uu sawiran kara maaha. qofka muslimka ah wax uu sawiran kara maaha. taxaddi iyo challenge iyo arrimo aad u adag ayaa waalidiinta iyo ilmihiiba haysta. habeen iyo maalin baa waxaa laga shaqaynayaa ilmihii inuu dhaqan wanaagsan oo saxa u haysan waayo. habeen iyo maalin baa laga shaqaynayaa. taas marka waxay keensanaysaa walaalayaalow inaan annagana noqono habeen iyo maalinta ay xumaanta ka shaqaynayaan inaan noqono dad ka shaqaynaya habeen iyo maalintaas hamigooda uu yahay in ilmahaas ay ilaaliyaan wadada saxdaan ay ku toosiyaan. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayaa inuu nala garab galo. shaqada culus weeye. ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu nala garab galo. waxaan si khaasa oola hadlayaa hooyooyinka Soomaaliyeed. hooyooyinka waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahay ha idin xifdiyo, ilaahay caafimaad wanaagsan ha idin siiyo. wanaagga aad haysaan ee aad wadaan iyo duruuftana intaa ilmo ku dhasheen aad ku ilaalinaysaan oo ku tarbiyaynaysaan, ilaahay mid dayacan idinkagama dhigo. ilaahay mid miisaanka xasanaadka oo buuxdo qiyaamada ha idinkugu keeno. fariin baan laakiin siinaya, mujtamac walbaba sibuu u nool yahay. mujtamac walbaba sibuu u nool yahay. hooyada Soomaaliyeed aabbaha ilmaha la dhalay waa farabadaan yana ka sugi. waxaa laga yaabaa rag waalidiin oo meesha jooga inay dhahaan wardi dowrka aniga meesha maxaa looga qaadaysaa. xaqiiqda jirtaa idiin sheegaya, dowrka aabbaha ee mujtamaca Soomaaliyeed kama badnaan karo 5%. ilmahaas gabareey adigaa dhashay, adigu calooshaada ku jiray muddo dheer, adigaa imaanshihiisa ku faraxsanayd, adigaa u soo xanuunsatay, adigaa u soo rafaaday. berri si uu kuu anfaco isla adigii waa inaadan fiirinin aabbaha, inaadan fiirinin wa mushkilada inay haysata maanta. aabbihii Soomaaliyeed wuxuu ka shaqaynayaa waa intaanada wanaagsan inuu reerkii profile gareeyo oo u dadaalo oo u shaqeeyo ka shaqaynaya. aabbihii Soomaaliyeed waa intooda wanaagsan, waxay ka shaqaynayaan inay reerkii u shaqeeyaan oo banaanka aadaan. xikmadda ku jirta markuu ilaahay leeyahay waqarna fii buyuutikunna, guryihiina jooga markuu leeyahay, xikmadda ugu weyn ee ku jirta waxa weeye almuxaafadatu cala albayt. guriga inay ilaaliso gabadha muslimadda. guriga yaa la jooga waa iyadii, nafteedii, awlaadeedii iyo wadaadkii intii uu soo shaqeeyay xoola ahaa. intaa inay ilaalisaa laga doonaya. mas-uuliyadda saaran gabadha muslimadda waa intaas. mas-uuliyad inay shaqayso banaanka aada ma saara, laakiin waan garaabayaa in la shaqeeyo ay duruuf keeni karto. waa arrinaan u garaabayo wey, culays ma leh, laakiin waa inay qalbiga iyo maskaxda ooga sharaxan tahay gabadha muslimadda ah shaqada koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad ee laga rabay inuu ahaa inay ilmahaas tarbiyo wanaagsan ay siiso. taariikhda islaamka markaan dib ugu laabanno, asxaabtii nabi maxamed iyo saxaabiyaadka markaan dib ugu laabanno, marka laga sheekaynayo waxaa aad ugu badan gabadh muslimada oo soo saartay imaam weyn oo ummadda muslimiinta anfacay, soo tarbiyaysay, u soo kacday, masaajidka u kicisay, masaajidka la aaday ayaa aad uga buuxa. sidaa daraaddeed qaybtan tarbiyada ah khaasatan ilmuhu markay yar yihiin, inta aysan 10 sano ka gaadhin, waana qaybta uu ilmuhu ugu xasaasisan yahay ee uu baranayo wixii khaldan iyo wixii saxsan, ee shakhsiyadiisa ilmaha wixii uu noqon lahaa inta badan uu ku samaysmayo. waa qaybta uu ilmaha aabbihii iyo hooyadii fiirsanayo, waxa ay ku hadlaanna uu ku hadlayo, waxa ay sameeyaanna uu samaynayo. hadday hooyadii salaada subax ka seexato, salaad subax u kac barri kuma karaysid, waa inaad middaa ogaataa. hadduusan aabbihii masaajidka aadaynin,
وريا مساجد مع أوسط وكلنا هاي كم كرايو سيدا درادد وقت جاس حساسية المه هو يدي كوك بدي هاي وإلي هو يلا مسؤولية وين إساساتها وإن هدي أي عنتديسة يوحو عبي لها يوحو حل الله يمجو سيحن لها لوايو والول كأي كول وليسو وإني كول وشا والول كبرا هدوس القرآن كبرني هدوس الدكسية آذين هدوس الصلاة تكنين هدوس المساجد كآذين وإني كول وشاوية هل كاسا ولا ليالو وهاكسو بحكرا ilma tarbiyaysan oo tarbiyo wanaagsan haysta maxaynu wax u tarbiyeynaa marka waxaan wax u tarbiyeynaa innaga iyo dadka kale waa kala duwanahay iyagu waxay wax u tarbiyayaan ilmahoodu markuu weynaado inuu qofka noqdo qof mas'uul ah oo naftiisa ku filan bay u tarbiyayaan annaguna waxaan u tarbiyeynaa inuu noqdo qof mas'uul ah oo tiisina ka soo baxay مدي والدين تينا كصوب حي نبينا عليه الصلاة والسلام وعو حديث كلية هاي قفك بني آدم كأمركي أودنتو عملكي وسميني وقوء يا وحانا سدحك هاي وهكمل عملك آن قوئين أو ولد صالح يدعو له المولاد سن أو ويل أما قبرأة أو أدعو عيسى أو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لها farxadda ay leedahay adigoo dhimatay camalkaadii uu dhammaaday ilmihii aad dhashay in ay sujuudda kugu soo duceeyaan ilaahay kuu soo baryaan sadaqo kuu bixiyaan cumro kuu soo sameeyaan haddaana xajini kaa soo xajiyaan khayrka kuu sameeyaan taasna ay aakharo iyo janno kugu timaado iyo godka lagu geeya halkaas mar walba oo wanaag kuu sameeyaba albaab jannaha lagu furo farxadda ay leedahay farxad yar maaha sidaa daraaddeed inagu ilmaheenna inoogama go'o maanta iyo berri inoogama go'o waa ilmo mar walba oo la doonaya inuu inala socdo waxaa marka walaalayaal la doonayaa inaan baranno sidii loo tarbiyan lahaa sidii loo tawjiihin lahaa hal arrinna waa ina haysataa hal arrin haddaad dadka soomaaliyeed nahay waa ina haysataa ilaahi subxaanahu wa tacaala meesha aan wejigaan quruxda badan ilmahaan wanaagsan ee qur-aanka bartay macallimiintaan masaajidkaan markiskaan khayrkan aan iskugu imaanay fadligan aan dartii u fadhino wejigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala weyn waxaan weydiisanaynaa mushkiladaas aan hadda sheegaya ee ilmaha fudfudud ah inuu ilaahay naga qaado ilmaha qalqaaliga ilaahay naga qaado walaalayaalow qayb weyn waxaa ka ah guriga dadku inay boogtooda iyo xanuunkooda ogaadaan way wanaagsan tahay guriga ayaa ka mid ah dadka kale inala nool iimaan iyo qur'aan iyo diin ma hayaan iimaan iyo qur'aan iyo diin midna ma hayaan haddana markaan meelo iskugu imaano iyagu dad degan oo isluub leh u og yihiin annaguna dad waalan oo miyir lahayn baan weyna muslimiin baan nahay qur'aan iyo iimaan iyo diin baan haysanaa خير بان أحفظنا خير الأمم بان هاي ومنها كوي أو خير بان بان هاي قدر المهني نبكى صحيح نبكى بركة حكوك يمد قاب كأن أتر بيان يين نوكي مركة يريهن إيران كتحدري وينوكي سيستم كود إيران إلى لوين يجو يريهن كيف قام الوصول لك الله والمهنين كا markay 5 sano iyo 4 sano iyo 2 sano jiraan dal laga malahaadu ka yimid meesha la rabo in la iska daba qabto halka weyn ilmahaada inta aadan dhalin iyo marka aad dhasho iyo marka uu 10 sano gaaro isku siba la rabaa inaad u ilaaliso waxa la yiraahdaa hooyada caloosha ilmaheedu uu ku jiro ee iyada uu walwalkeeda iyo stresskeeda badan yahay ilmaheedu uu gudbayaa bay leeyihiin nimankan wax bartay ee wax aqriya waxbaan daraasayna dhahaan waxay dhahaan xataa hooyada stresskeeda ilmaha waa u gudbaa sidaa daraaddeed waxaa la doonayaa markay gabadhu caloosha ilaahay wax u geliyo inay ilaaliso kadib walaalayaal markuu ilmaha dhasho waxaa la doonayaa in
la ilaaliyo ilmahaas qaab nololeedkiisa hurdadiisa noloshiisa cuntadiisa xirashadiisa gabadh waxaa rabaa inay iyada murugadeedu ay noqoto ilmahaas su ilmo wanaagsan ku noqon lahaa waxaa la doonayaa waan qaylo badan nahay qaylada inaan ka yarayno waan dhawaaqnaaye dhawaaq inaan yarayno rifqiga iyo naxariista inay unagu badato waxaa la doonayaa aabbaha iyo hooyada xataa haddii uu aabbaha dhib badan yahay oo aabbaha uu qaylo badan yahay hooyadu inay iska aamusto ilmaha agtooda waa inaan lagu qaylin oo isku qabsan oo lagu buqin waxaan aragnay qoysas fara badan oo aabbaha iyo hooyada ay 12 maanta isku dhegan yihiin oo soo saaray ilma aad haddaad hadal la dabagediso qaylo iyo buq furay waxaa la doonayaa marka in labada waalid ay isku dulqaataan qur-aanka gabadhu markay caloosha ilmaha ugu jiro inay qur-aan akhriska ay badiso dhegaysiga ay badiso markuu yaryahay inay qur-aanka u laqmiso wax badan oo laga hadli lahaa baa jira laakiin munaasabadeedii ma aha waayo waa xaflad ilmahana waqtigooda la siinayo culimmada kale la rabo inay la wadaagaan waxaan walaalayaal ugu dambeyn gabdhaha soomaaliyeed aan ku tartarsiinayaa fiirsiga iyo isagaba waa aabihiiba dankama lahada inay iska ilaaliyaan arrintaa arrin wanaagsan ma aha ilmahan idinka agdhow yihiin 9% adiga tarbiyadiisa gacantaada ku jirtaa bacd allah ilmahaadaas wanaaji ka dadaal waxaad u qaban karto u qabo aabihii hadduu kuu fiicnaado khayr hadduu waxoogaa gasgas noqdo meelo wareeg anigoo kale taa uu noqdana waxaad ku dhahdaa war soo laabo oo nin wanaagsan noqo oo yaraa waali oo ha kuu soo laabto oo ma garanaysaa ha kula koriyo oo ha kula fiicnaado intaas marka aad ka soo leexdo markaskan waxaan leeyahay allah ha xifdiyo ha barakeeyo waa community yaroo qurux badan runtii qaabka organize ku tihiin oo isku samaysan tihiin waa qaab wanaagsan wa waxaa idin leeyahay walaalayaal qur'aan arrigan aan joogno xumaantiisa iyo dhibkiisuu leeyahay laakiin wanaag aan lala gaarin buu leeyahay wanaaggaas aan idiin sheegayo idinkugu bashaareynaya waxaa weeye hadday noqoto qur'aan barashadiisa iyo ilmaha in laga saxo axkaamta iyo ilmaha in carabkooda la toosiyo xataa waddamadii muslimiinta aan ku noolayn marmar qaarkood waxaa isdhahaysaa america ka fiican maraakista islaamiga ee minnesota weliba ku yaallaan baan si khaasa usii ammaanaya macallimiinta dadaalka ay ku bixiyaan xaqiiqatan aniga markaas baan mas-uulka ahaa oo aan mudiirka ahaa oo nairobi ku yaalla xaqiiqatan macallimiinta dadaalka ay ku bixiyaan maraakista islaamiga ee waddanka ku yaalla iyo ilmaha sida ay carabka uga saxaan iyo ilmihii yaraa siduu hadda carabkiisa ugu saxnaa inaysan meeshii aan joogay ka yimid oo dhul muslimiin ay ku nool yihiin iyo meelihii kaletaba inaanan arrintaas noocaas oo kartaa laga helin waa sax bay-ada iyo masaajidaha iyo khayraadka ay uga badan yihiin oo runtii aada wanaagsan laakiin qur-aanka barashadiisa meelahan iyo maraakistan way wen yihiin way ku fiican wayna ku horumarsan yihiin waxaa nagala rabaa waxba yaanan shilimo fiirinin lacag yaan la fiirinin xoolo yaan la fiirinin ilmaha ka muhiimsan iyagaa berri ku haraya ilaahay waxaan ka rajeynaya inuu owlaad saalixiin inooga dhigo dhibaatada qoysaska haystaan inuu ilaahay ka qaado nolosheedana nolol iimaan iyo qur-aan uu ka buuxo alla uu ka dhigo waqti ayga dhamaan waana ku dheeraaday garaal noqda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله تبارك الله حنيه الله شاب ضلها والها بركيو إن المرجع ضربنا تربية الأولاد يا والدين يا معلمين توصيف عنه تشكيليه وقتي ويرأوه ما داموا مرتي هاي وعشان يتوضع غسيني ما نقدر نورنتي أنتوا هذا مركز في رسو إن الله وضع غت هاي وأيوه هذا الكوكو قص عضل حقاوي معايا هذا الله لو كان معايا جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسناتك هو صاروا إننا الله نوافع كلمة داس هذا نوحنوير هي ardada maanta qalin jabinaysa waa ardadan ka nuucduwan ardadan kaleete oo gabdhiyo wiilal iskugu jira marka haddana waxaan u yeelayaa Zakariya Cabdiqaadir dalmar inuu noo akhriyo aayad quraan ah insha Allah taala falyatafadal mashkuur halka soo gal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله